السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتyaasha qiimaha badan oo salaamantiin meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena taariikhda jalayaasha waa barnaamij isbuuciiba hal mar aan kusoo qaadano taariikhyaasha jalayaasha fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb barnaamijkeena taariikhda jalayaasha waxaan kusoo qaadanaynaa Power Star Saren Devi min bilow ilaa dhamaad hordhaca waa kuma Saren Devi waxay leedahay tirisho film maalgeliso ayadoo ka soo shaqeysay guud ahaan shirkadaha kala duwan India aflaamta sameeyaan sida Tamil, Telugu, Hindi, Kannada iyo Malayalam waxayna hanatay inay gaarto darajada tirishada ugu sareysa magac loogu yeero taasoo ah Superstar waxay ku guuleysatay abaalmarinta Filmfare Awards tiro shan jeer ah qaybaheeda kala duwanaa sideedkamaadkii ilaa sagaashamaadkii waxayna ku jirtay xidigaha mushaarka ugu badan aflaamta ku sameeyaan ayadoo loo aqoonsaday xilligaas tirishada ugu awood badan uguna magac weyn dhanka fanka Hindiya sanadkii 2013 dawladda Hindiya Saren Devi waxay siisay abaalmarinta Padma Shri oo ah abaalmarinta afraad ee ugu darajada sareyso taasoo la siiyay muwaadin Hindi ah oo dalkiisa wax badan u qabtay shakina kuma jiro Saren Devi muddadii ay fanka ku jirtay inay qayb ka qaadatay sar u qaadida fanka Hindiya Saren Devi waxay guursatay qarash gareeyaha Bonnie Kapoor oo ay u dhashay laba gabdhood kuwaas oo kala magacaabo Janvi iyo Kushi Sari ayaa wadna xanuun u geeriyootay xilli ay ku sugnayd Dubai ayadoo laga wada naxay dhimashadeedii Saren Devi iyo bilowgeeda nolosha iyo marxaladii ay soo martay Saren Devi magaceeda dhabta waa Shri Amni Yangar balse magaca Saren Devi ayaa in badan loo garanayaa waxay ku dhalatay gobolka Madras ee dalka Hindiya aabeed waxaa lagu magacaabo Ayban waana reer Tamil halka hooyadada ay tahay reer Telugu laguna magacaabo Rajeshwar aabeed wuxuu ahaa qareen ama abukaate waxaana la dhalatay hal gabar ayadoo ay xidigtan taariikh ahaan dhalatay 13 bishii Agoosto 1963 waxayna geeriyootay ayadoo 54 sano jir ah muddadii yaraanteeda waxay jeclaan jirtay qaab jiriinka ayadoo yarba ay fanka ku soo gashay Saren Devi iyo sida fanka ay ku soo gashay ayadoo yar caruur ah 1967 ilaa 75 Saren Devi waxay nasiib u yeelatay inay fanka soo gasho ayadoo aad u yar misna 4 jir ah filimkeeda ugu horeeyay oo ay ka soo muuqato wuxuu ahaa film Tamil ah oo lagu magacaabo Tunavai waxayna ku lahayd door muhiim ah filimkan ayadoo aad u yar sidoo kale filimkeeda ugu horeeyay Telugu ah wuxuu ahaa Maanay Nirshi kaasoo la daawado 1970 balse Saren Devi wax qabadkeeda caruurnimo iyo xirfadeeda heerka sare ah wuxuu soo shacab baxay markii ay sameysay filimka lagu Malayalamka kaasoo lagu magacaabo Boobath oo la daawado 1971 waxayna filimkan ku qaadatay abaalmarinta Filmfare qaybta caruurta waxaan la siiyay abaalmarinta Filmfare Best Child Artist ee gobolka Kerala wixii markaas ka dambeeyay Saren Devi xirfadeeda ayaa la dhacay waxayna noqotay dooqa koowaad ee film sameeyaasha koonfur Hindiya dhanka caruurta ayadoo sameysay aflaamo badan ilaa ay ka soo qaan gaarto Saren Devi waxay markaas u dalaacday inay u shaqo doonato dhankaas iyo Bollywoodka oo ay shirkadda ugu weyn aflaamta dalka Hindiya sameeyso waxayna ku soo caan baxday dhankaas iyo Bollywoodka filimkii July oo la daawaday ayadoo door muhiim ah ku lahayd mashruucan waxaan la daawaday sanadkii 1975 atirishada Barisamadki Lakshmi ayaana hogaami ka ahayd halka Saren Devi Lakshmi walaasheed ku jileyshay Saren Devi markii ay tirisho buuxda noqotay taariikh ahaan ka gaartay koonfurta Hindiya 1966 ilaa 82 maadaama aflaam doorarka iska caadi ay filimada ku jileysay Saren Devi markaas waxay bilowday inay atirisho buuxda ka noqoto aflaamta waxayna sameysay sanadkii 1966 filimkii ugu horeeyay ay atirisho buuxda ka noqoto kaasoo koonfur Hindiya ahaa waxay ku soo caan baxday dhanka hogaaminta atirisho buuxda filimkaas oo lagu magacaabo Mondori kaasoo mashruuc guul weyn gaaray sidoo kalena Saren Devi aqoonsi ku heshay waxa uu xigay aflaamo badan oo ay la sameysay Kamal Hassan iyo Rajinikanth ama Jestole oo xilligaas koonfur Hindiya atoryaal dhalinyaro ka ahaayeen Saren Devi waxay noqotay xidig caalami oo laga daba dhacay sidoo kalena aqoonsi weyn ka heshay dhankaas koonfur Hindiya waxayna ay gaartay heerka ugu wacnaa oo waxa loo magacaabo Amitabh Bachchan koonfur Hindiya ayadoo golo waaweyn ka soo hoyeysay fanka koonfureed ay xidigtan go'aan ku gaartay inay Bollywoodka awood ku qabsato maadaama ay koonfur awood ku qabsatay Saren Devi markii ay Bollywoodka soo gashay sidoo kale awood ku qabsatay 83 ilaa 1997 Saren Devi waxay koonfur Hindiya ku xifaaltami jireen atirishada Jaya Barada sidoo kale awgeed hal mar ay soo wada galeen Bollywoodka sidoo kale hal mar ay wada soo galeen Bollywoodka ayagoo isku sanad aflaamtooda labada saaray Saren Devi waxay atirisho buuxda ka noqotay filimkii Zulfa Sawan oo la daawasay 1979 kaasoo ay la jeshay Amal Bhattacharya
nasiib xumo Sarah Devi filimkan wuxuu ka noqday mid guul dareystay oo aan ganacsi fiican sameynin sidoo kale aqoonsiga ay Bollywoodka ka rabtay kuma aysan helin halka Jaya Barada filimkeedii koowaad ee isla sanadkaas oo soo baxay filimkii lagu magacaabay Sargam ay Rishi Kapoor la sameysay wuxuu noqday filim hit weyn ah. Sarah Devi ayaa dadaalkeeda bartiisa ka sii waday waxayna 4 sano kadib la timid filimkii Himatwala ee la waday sanadkii 1983 waxaana filimkan atoore ka ahaa Jitendra إنما عادي ما أهن بندقة تاريخ سارة ديفي فيلم كان كوب موجسين وحن نقضي مت كمدة هيتكي أبوه وين سنة كاس أي سميان يوم مت كمدة أفلام تلعجها أبوه بدن سوح رئيس لسنة كاس سارة ديفي أقونس أي بولود كهربتي سفضل أي كوهش فيلم كاس وجهش أيضا نقطين التريش اللي غدا بدأ وعي وحن أحيجن أفلام بدن أي وضع صحيحة تقولوا عن وضع جارين أنت أقول لي حيس كوس ديتن سدح لا ديتن زيد سارة ديفي جدندرة وحي وضع سمي لحي تون فيلم مادام أي ساري أبول وين هيسا جدندرة وصوعا بحي حدق وين كدقين جراياشا والاسكود حمن جري حدقان إنو حرير جعيل لدحيو وحان حسد مدى إن سدح توان فيلم كمدا قوليستين لحي توان كفيلم أي سدح فيلم كلي كقول درستين سنة كيكون صالب قل زيتن أفرت سارة ديفي وحي كم من نقطة أتريشوينك وأود بدن بولوودكا هدف كيدا نوي قارتين مادام فيلم كي توفا أي جدن ترى لدى وضي أول نقطة فيلم كي لعاها أقوب بدن سنة كاس كيانو أيضا سارة ديفي بيج ستار نقطين انت كدب وحي حدقتا انت كدب وحا حدقتا أحيغان وأي أتريشو كم نقطة أفلام تاريخة أو كلاسيك نقطين سيدا جلباز آخرين رستا إمار إنديا جندي لادلا جداي يقوى كالي أو بدن Sarah Devi waxay gaartay heer la dhaho Amitabh Bachchan naagta ah maadaama ay awood buuxda kula wareegtay afanka Hindiya waxayna bilowday inay aflaamta ku sameyso lacago waali ah xitaa atoorayaasha qaarkood ay mushaar ahaan ka wada sareysay waxay iska diiday inay Amitabh Bachchan film la sameyso sidoo kale ayadoo sheegtay in Big Bachchan filimada uu isaga awood ahaan la wareegayo halka ayadan ay doonayso awoodda filimka inay ayada la wareegto inkastoo aflaam dhowr ay la sameysay sanadkii 1992 Sarah Devi waxay iska diiday filimkii blockbuster-ka weyn noqday beta oo ay wada jileen Anil Kapoor iyo Madhuri Dixit ayadoo sheegtay in Anil Kapoor uu ka badbatay sidoo kalena film uu la sameysay wallow markii dambe ay la shaqeysay balse Sarah Devi xiligaas awoodeeda fanka ay gacanta ka saartay Madhuri Dixit maadaama filimkii blockbuster-ka weyn noqday ay gacanta u gelisay ayada qaar ka mid ah aflaamta Sarah Devi ay hogaamiyaha ka noqotay ayadoo atoorayaasha filimka ka awood badnaatay filimadaas oo dhowr ah waxaa ka mid ah MR India waxay la jeshay Anil Kapoor ayada ayaana kaga saameyn badnaatay filimkaas halka Amrish Puri hogaamiyaha saddexaad uu yahay Nagini waxay la jeshay Sunny Deol oo xiligaas superstar weyn ah ayadan ayaa kaga awood badatay filimka doorka ugu weyn filimkan ayada ayaa jeleysay inaba caadi maahan Jalbas waxay la jeshay superstarka kale ah Sunny Deol iyo Rajnikanth waana mid ka mid ah hitkii ugu weynaa filimada ay sameysay waxayna filimkan ku jireysay laba door waxaana xusid mudan filimkan oo dhan inay ayada wadato halka atoorayaasha filimkan sharaxaad ahaa ama heesaha filimka inay ayada la qaado u joogeen filimkaas sidoo kale door caawiyaal ah ay ku leeyihiin maadaama ay caawinayaan Sarah Devi balse awoodda filimka Sarah Devi ayaa gacmaha loo geliyay Jandani waxay la jeshay Rishi Kapoor iyo Vinod Khanna oo ahaayeen xidig waaweyn balse waxaa xusid mudan in filimkan Sarah Devi kaga awood badatay atoorayaasha filimka ayadoo doorka ugu weyn la siiyay iyo hogaamintiisaba laadla in caadi ma ahan sida ay filimkan kibirka ugu jeshay waana mid ka mid ah aflaamta lagu xasuusan doono xidigtan waxaana atoorka Anil Kapoor ay xiligaas shaashada kaga awood badnaan jirtay laadla oo dhan Sarah Devi ayaa iska leh oo uu ku socday iyada ayaan hogaamiye ka eed ayadoo kaga saameyn badnaantay superstar Anil Kapoor Sarah Devi waayo waxay caado ka dhigatay in Anil Kapoor shaashada kaga garaacdo waxayna gaartay inay ninkeeda gadato inaba caadi ma ahan filimkan sida ay u jeshay iyo hogaaminta filimka oo dhan ayada ayaa gacanta loo geliyay waxaana kaloo ka mid ahaa aflaamta ay atoorayaasha kaga awood badnaatay sida Gumraha oo ay la jeshay Sanjay Dutt la sameysay Army oo SRK la sameysay muuqaal marti ku lahaa ay la sameysay Mom Mary Bionica John oo ay la sameysay Akshay Kumar Jandari Mukhri iyo kuwa kale oo badan lama tirin karo filimada Sarah Devi ay hogaamiyaha ka noqotay sidoo kale ay shaashada kaga awood badnaatay atoorayaasha filimka Sarah Devi waxay ka qayb qaadatay barnaamijyada ka baxa TV-yada sidoo kale filimkii ugu dambeeyay Bollywoodka wuxuu ahaa Momo ay hogaamiye ka ahayd waxaan la daawaday sanadkii 2007 wuxuu noqday filim ganacsi ahaan guul dareysay balse bandhigeeda aad loo amaanay sidoo kale waxay muuqaal marti ah
ku lahayd filimkii Zero ee SRK hogaamiyaha ka yahay Sara Devi iyo nolosheeda gaarka ah iyo dhimashadeedii. Sara Devi waxaa lagu xantay inuu xiriir jecel kala dhexeeyay atooraha Jitendra, sidoo kalena waxaa la sheegay in Mithun Chakraborty ay si waali ah jecel sidoo kalena guur qarsoodi ah la gashay sanadkii 80-maadkii dhamaadkiisa. ugu dambeyn sanadkii 97 waxay guursatay qarash gareeyaha Bonnie Kapoor, waxayna u dhashay laba gabdhood oo kala ah Janvi Kapoor iyo Kushi Kapoor. sidoo kale Sara Devi dumashaalkeedu waa Anil Kapoor iyo Sanjay Kapoor oo labaduba ay la dhashteen Bonnie Kapoor. Sara Devi waxay ka qayb gashay aroos qaas ah oo lagu casuumay wuxuuna ka dhacay Dubai, halka ay la jireen gabadheeda Kushi iyo Kaushi Kapoor iyo saygeeda Bonnie Kapoor. Sara Devi ayaa la sheegay fiidkii oo taariikhda markay ku beegnayd 24 Febraayo 2018 in xanuun kays ah oo dhanka wadnaha ay ku soo booday, sidoo kalena u geeriyootay daqiiqado kadib geerida. waxaa hal mar isla wada kaceen India oo dhan. sidoo kale dumaashigeeda Sanjay Kapoor ayaa shaaciyay in geeridan naxdintan leh maadaama Sara Devi horey aan looga oqoonin wadna xanuun. waxaa halkaas inoogu dhan taariikhda superstarada weyn Sara Devi. fadlan hadday tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan, share asxaabtaada la wadaag. like inaad saarto muuqaalka waxay naga saacidaysaa inuu muuqaalkan dad badan gaarsiiyo YouTube-ka. please like saar muuqaalkan.